wasiirka madaxtooyada maamulka Khaatumo Mukhtaar Ibraahim Xabashi ayaa si kulul u cambaariyay hadal ka soo yeeray maamulka Puntland oo ka hadlaya dhacdadii Taleex ee 28 November 2013 wasiirka oo soo xiganaya hadal uu sheegay madaxweynaha Forola ku sheegay in dagaaladii Taleex ay u dhaxayeen cidka reer Taleex ciidanka u soo diray weerarka ku soo qaaday walow uu habeen hore ka sheegay idaaca TV-yada oo yiri Taleex waxa lagaga soo duulay oo laga xasuuqay Boohoodle kelmadaasi kelmad nin weyn yiraahdo ma ahayn isaga ciidanka u soo diray isaga ku soo duulay isaga baabiyay Boohoodle iyo Taleexna waa laba magaalo oo walaalaha oo isku dad oo isku deegaana aad baan uga xumahay inuu hadalka yiraahdo waxaan kaloo aad uga sii xumahay nimanka isimada sheeganaya ee garoowa jooga garaasay ciid isimada la yiraahdo inay yiraahdaan reer Taleex baa islaayay aad bay noogu aflagaada tahay kelmadaha noocaas ay isimadu sameynayaan waqtiguna uu isqoraya waana wax laga xisaabtami doono inamadiinii baa nagu soo duulay oo Forola noo soo diray nalaayay inay yiraahdaan reer Taleex baa islaynaya kelmadahaas aad bay noo gubayaan runta markaan sheego wasiirka wuxuu kaloo ka hadlay xanuuno ka dilaacay barakacii ka dhashay dagaaladii Taleex wuxuuna sheegay in hay'adaha caafimaadka ay ka gaabiyeen inay wax u qabtaan wuxuuna kaloo dawladda federaalka ku canantay inaysan dadka deegaanada aysan waxba u qaban isaga oo ra'iisul wasaaraha cusub ugu baaqay inuu il gaar ah ku eego deegaanada Khaatumo wuxuu u baahan yahay in lala soo gaaro caawimooyin caafimaad iyo mid kalaba mar haddii roob da'ana dibteeda leedo biyaha soconaya way qaadayaan kulay shoom waa ka mid weeyaan dadka oo dhan baa durayeen baa iska dhacay aad bay malaria waa jirtaa waxyaalo badan oo caynkaas oo cudurro kulay kuwa kiraan ilaa iminka cid aanu haynaa ma jirto noo timi cid noo ballan qaaday ma la xiriirteen ama u sheegteen anagu iska qoraal la waan meel walba u gudbinay TV-yada iyo idaacadahana waan ka hadalay waxaan sugaynaa in ciddii noo soo jawaabtay noo timaado dawladda federaalkii way ogeyd wixii ka dhacay Taleex mana ka hadal sababaha ay ku dhacdayna garan mayno waxaan u sheegaynaa deegaankan Taleex waa deegaankii xornimada Soomaaliya ka bilaabmatay maantana waa lagu duulay gobolka Puntland la yiraahdo ee Forola hogaaminayo baa ku soo duulay oo baabiyay xasuuqna ka sameeyay dad badan laay dad badan barakiciyay ma garanayo dawladda federaalkii sababta ay uga aamustay oo uga hadli weyday arrimaha runtii waxaan maqlaa had iyo goor gobolada dhexe ayaa dad isku laayeen dad baa wax la yeelay tani miyaanay ka tirsaneen federaalka garan maayo waxaan u dirayaa ra'iisul wasaaraha cusub kuwii hore way hakradeen adigu arrintaa wax ka qabo